عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada channelka ruuxi home decor waa walaashin raxma ruuxi maanta saa ujeediin waxaa waaye adduunkan isku dhex kacsan marka waxaan rabaa inaan alaabtan dhan jikada ka bixiyo oo banaanka aan geeyo ka bacdi waxaa rabaa sunaa rabaa inaan ku buufiyo guriga sunta seeto inay iga difaacdo baraanbaro inaysan ii imaanin mise wax cayayaan yaryar marka waxaa waaye sunta beeraha lagu shubo waaye sun saas u sii dhib badanna ma ahan laakiin waxaan sameynaa insha Allah markaa buufiyo waxaa waaye meesha haweenkii aan buufinaa insha Allah alaabta dhan banaanka iskaga bixinaya ka bacdi insha Allah subaxdii aan sameynaa haddana birsada iyo meelaha ma arkin oo buqbuqyaasha oo hoos alwaax marmaraya iyo aan ku buufinaa laakiin qolash ma ku buufinaa maadaama oo wax oo cunto iyo wax seeta la keenin marka saa ujeedin in armaajada neetana waan buufinaa insha Allah armaajayaasha kulli waa buufinaa waan ku xiraa wax oo dhib eesas ma keenayso waayo waa bahasha oo lagu buufiyo qudaartan saa ogtihiin markaasoo la keeno ayadoo oo saabuun iyo oomo waxna lagu dhaqin biyo bisaa la iskaga dhaqaa ka bacdi waa la iska cunaa wax sun ma ahan marka saa ujeedin walaalaheyga adduunkeyga saan iskugu dhex kacsan yahay hadda galaba ay tahay marka waxaan rabaa inaan buufiyo insha Allah marka bacdi the next day videoga nita arki doontiin marka aan soo hagaajiyo ka bacdi oo before and after insha Allah ka bacdi qolka ilmahana sidoo kale dharka dhan waa ka bixiyay iyakan armaajada rabaa inaan ka buufiyo marka armaajada gudaha ka buufinaa insha Allah ay ka dartaan xaafada walaashayaan geeye marka waxa waaye waan ku xiraa insha Allah ka bacdi cabaar yar markay ku jirto ka bacdi iska soo laabanaa insha Allah marka wax oo effect mu keenayso marka walaalay qaaliga waa kana alaabta jikada dhan ku jirto waa soo bixi banaanka keeno wixii maacuun ahaa iyo raashin iyo kulli soo sunta u taabanin qaarka kalena waa kana birsada yaalaan marka dharka iyo waxa dhan waxa fadhiga keene saa ujeedin saas isku dhex kacsan yahay marka insha Allah suntana waa idin tusi doonaa mid beeraha lagu buufiyo waaye oo ka ilaaliso inuu beeraha bahal cunin marka sun oo soo dhib badan ma ahan maasha Allah marka bahal dhan ma ku soo dhawaanayo waxa waaye darsa la leeyahay xabada daris ka soo baxda markoo waxa arkaysa iyadoo meelaha fafakanayso faanteen marka waxa seeta ka caawinaysa insha Allah after every 3 months hal mar aan sameeyaa because sunta saddex bil dhan way shaqeynaysaa wax oo baraanbaro mise in cayayaan dhan guriga ma ku arkaysid insha Allah hatta kaneecada hadda ma arkaysid way bixi marka waatana waxa la confider WG 70 halaha waa kana biya lagu qasaa saddex waraaq oo yaryar ku jirto marka hashi waraaqba waxa ku qasaysaa nus liter oo biyo marka waa kana qofka u baahan insha Allah screenshot ka qaata meelaha oo waxyaabaha beeraha oo qudaarta lagu gadgado laga helaa insha Allah saa ujeedin waa kana maasha Allah marka insha Allah waa arki doonaa sida u sameeyo insha Allah ka bacdi waxa hool culus ay taalo adduunka isku qarxiimaho waa kana marka hadda maxaan galay nadaafada galay marka armaajiyaasha tirtira insha Allah iyo darbiyada meelaha ma arkin oo markii oo martay ay imaata amal boorsada hadii la dhaxgeliyo armaajada la dhaxgeliyo meelaha xoqay marka qaarna wuu ka fuqay qaarna wuu diiday inuu ka fuqo laakiin aan waxa isku dayaa insha Allah inaan si fiican clean uga dhigo intii xoogayga waan saari doonaa ka bacdi soo noqdo waa isla arki doonaa insha Allah marka waa kana hadda waxaan dhaqaaya darbiga oo aan idin sheegayo boorsada madowga ku haleysay marka waxa waaye suuq soo baxo arki doonaa xooga saarooyaa si fiican uga waa kana saa ujeedin saasa u nadiifiye marka maasha Allah waxaan sameynaa insha Allah dharka inta ku soo rasaysana hadda armaajadan teeda waaye musmaarada sida meesha aan ku dhijisto si oo boorsayaasha u surto insha Allah marka waxaan isticmaalayaa catarkan Cabdullaahi wuxuu ka caawinaa asina sidoo kale armaajada markii qofka uu furo amal inuu wax shirshir wax uu ka dareeman amal carfisadan ku dhex dara Cabdullaahi isku qasaysa ujeedin marka waxaan sameynaa armaajada dhan ku buufina ka bacdi marka seeta dharka ku soo baankeena insha Allah waa arki doonaa marka maasha Allah caraf أنا waxaan sameeyaa armaajada saan markaa ku buufiyo ka bacdi haddana waxaan sameeyaa
cuudka oo aan shito oo aan jeclahay inaan dharkeyga ku shito. Waxaan sameynaa dharka dhan markaa hangarka aan ku safo dharka dhan aan safo cuudka shida dharka hoostiisa dhigaa marka korna wuu ka daboolan yahay dhuwata haduu wax ku dhaco miga guwaayo bahalka isticmaalo waxa kor wuu ka daboolan yahay. Marka waa kana waxaan sameynaa marka sidaas caraf iga dhigaa waa kana dharkeyga waa kusoo raasaysta meesha cabaayalka iyo diracyaalka iyo khamaarada dresseska waxyaabaha aan banaanka u isticmaala meesha kusoo saftay. saa u jeedin waa kana qolkan waa soo google maasha Allah hadda saana kasoo dhigay go'ana waa iska soo bedelay maasha Allah. Marka qolkeyga saana u soo taagtay qurux nadiif kusoo dhigtay caraf unsigeeya kusoo shitaa ku dhawareer la'aan aaba daale laakiin anoo meel kasta iyo carfaysa seexanamuhu oo nadiif ay tahay maasha Allah. Marka waa kana si kasta hadii u fiirisiin meel kasta ka fiirisiin waa kay maasha Allah clean way very clean way armaajada waa tan iyadana waa suurasay dhinacaneed meelaha baatiyaasha aga gashto way dharka oo yaryarka meesha kala daadin tusaayin cabaayalka iyo waxaan surtaa maasha Allah. Marka waa kana walaalay qaaliga waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontiin adinkan ay dhiirigelin idin tahay anina maxaa dhahay dhiirigelin ii tahay sida quruxda badan comment-yada igu soo qortiin sida quruxda badan YouTube-ka igu soo dhaweyseen maasha Allah. Hadda ka dambana qofka igu cusub barasho waxaan idin leeyahay oo wali arkin insha Allah soo dhawaada subscribe iyo saar insha Allah comment iyo share iyo like intii hore ila joogtana musqusha xitaa waatana waa soo nadiifi idana sunta iyada xataa waa ku shishubay because meelaha yariska bahalo oo bubuwaan oo yaryar keenano oo meesha oo biyaha ay ka baxaan iyo maanta dhan ku kor wareeganayaan marka waxyaabahaas dhan waan necbahay marka that's why aan u isticmaalo saddexda bil hal mar iska buufiya ka bacdi maasha Allah. qolka ciyaalkana waa kana asna waa soo hagaajiyay clean aan kasoo dhigay maasha Allah. birsadan insha Allah waa isla arki doonaa iyo armaajada dhexdiisa u soo hagaajiyay marka maasha Allah. waxaan idin rajeynayaa adinkan inay dhiirigelin idin tahay inaad oo daawada idin tusay oo screenshot ka qaadatiin oo raadsatiin oo qofkii baraanbaro iyo wax isku arko oo dhibsada camal insha Allah inuu iskaga nadiifiyo. waxaa waaye ani wiil waxaa ii joogaa meeshan bahal yariisko hadda arkata tixsi oo qeylina waa kana saa u jeedin intan waxaa waaye armaajada dhexda waaye meesha hoos waxaan geliyay kabaha oo wiilkeyga iyo toyskiisa insha Allah hoostaneetana kabayaalka yaa gashta marka korna waxaan gashtay alaabaha musqusha aan ku dhaqdo iyo waxaan gashtay geeskan kale waxaan ka saartay baby yariista shaambadeeda iyo waxeeda uu qabeeyo iyo looshinka korka oo marikoos armaajada neeto iyo musqusha banaanka way iska soo horjeedaan marka way dhawaanaysaa insha Allah ina oo maanta dhan oo wax aan doonin marka meesha seeta ku rasaystay. waa kana jikada sida isku dhax kacsaneed iyadana waa kana maasha Allah saana kasoo dhigay waa soo nadiifi maasha Allah. waxaa waaye ka arka kasoo dhigmo qurux clean nadaafada wallahi nolosha barkeeda waa maasha Allah aniga zaida u jeclahay nadaafada marka insha Allah adinkan waxaa idin rajeynayaa qof kasta inay dhiirigelin u noqoto oo waxaan ku dhahay la dhahay hala kaxee fadhiga laga kaco dhiirigelin. marka waa kana walaalay qaaliga videogana waa idin ku dheereeyay karaal noqda waayo shaqo badan aan qabanayo ahaa marka inaan wax walba idin duuba rabe marka saa u jeedin waa kana jikadeena sidaas quruxda badan aan ka dhigay fadhigana waa kana asna maasha Allah asna qurux daahan qofkii fahmi kara waa ka design-ka idin bedele labada jab oo buluug ah dhexda isku geeyay labada kalena geesahan ka dhigay maasha Allah asna sidaas ay tahay qurux ku soo baxay waa kana saa u jeedin markiisina waxaa waaye guri qurxin just maskax leh u baahan tahay waxaa waaye laba hadii isku keentid waxaa waaye wax la soo baxaa maaha marka waa kana walaalay qaaliga waxaa idin rajeynayaa inaad ka heli doontiin oo aan sameysan doontiin dadkii u baahan daawada sida screenshot inay ka qaataan meelaha oo lagu gado daawada cayayaanka yaryar iyo alaabaha oo beeraha lagu beerto iyo waxa sida laga helaa marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaad raadsan doontiin insha Allah
walaaley qaaliga waxaa idin rajeynayaa inaad ka hesheen videoganeeto insha Allah. inta igu cusub subscribe ay saarto, inta hore ila joogtana comment iyo share iyo like. waxaa idinkaaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo insha Allah. mar kale video qurux badan insha Allah. inta xanuunsan Allah caafiyo, inta caafimaad qabtana Ilaahay ha u ziyaadiyo idin leeyahay sidaas iyo bye bye.